talaadadii ayuu xukuumaddiisa ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka mid ahaa Mukhtaar Roobo Cali oo loo yaqaan Abu Mansuur. Mukhtaar waxa uu mar ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya ururka Al-Shabaab inkastoo markii dambe uu ka baxay dagaalna ay wada galeen. Abu Mansuur ayaa waxaa la sheegaa inqilaabkii dhexmaray isaga iyo hogaankii kale ee Al-Shabaab inuu salka ku hayay qaabkii uu maareeyay xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool oo la sheegay inuu u ogolaaday inay si nabad magaalada uga baxaan kadib markii ay odayaal dhexdhexaadiyeen. Mas'uuliyiintii xilligaasi la kulmay Mukhtaar Roobo ee sida nabadda uga soo baxay deegaanadaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan hore Ibraahim Isaaq Yarow waxaana kala sheekaystay sida ay maalintaasi wax u dhaceen. maalintaas waxay ahayd mar baarlamaankii dowladii federaalka ku-meelgaarka ahayd uu ka baxayay kama baxay dhammaantiis laga raray magaalada Baydhabo loona raray Djibouti halkaas oo baarlamaanka markaas la kordhiyay tiradiisii 550 laga dhigayay oo madaxweyne Sheekh Shariif la soo dooran doono marka bixitaankii dib u heshiisiinta ku saabsanaa ee halkaas laga ambabaxay anaga oo group kooban ah oo xildhibaano ilaa 7 gaaraya ayaan magaalada Baydhabo ku harnay si kooban 2 maalmood ama inaan dib u harno maadaama deegaankayga ay ahayd dardaaran iyo muxuu inaan wax toosino darteed intaan magaalada joognay waa tajiinka waad ka garan kartaa xaalada waa isbedeleen ciidamadii meesha joogay oo muxuu ahaa Ethiopiaanka laftooda way baxeen kaligeena meesha ku soo harnay iyo dadkii deegaanka oo cabsida ka abuurantay qolooyinkii oo muxuu ahaa muqaawamada ahaa oo iskugu jiray muxuu ahaa magacyada kala duwan lahaa waa soo dhawaadeen magaalada ku soo dhawaadeen odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii deegaanka iyo culimadii waxay garteen in muxuu ahaa aan korkooda wax ka dhicin anaga bay noo yimaadeen oo xildhibaanada ahaa oo joogay halkaa ku haray waxay yidhaahdeen bal arrintaasi waxaan rabnaa maadaama idinku aad ama baxaysaan inaad fududaysaan dhaqso baxdaan oo muxuu ahaa meeshii idin fudud aad gaadiidka aad ku bixi kartaan ka heshaan oo furtaan annagana qoladan kale aan iskala hadalno si aan magaalada waxba iska horimaada iyo muxuu ahaa dhibaata aysan uga dhicin tii bay noo sheegeen waanu ka aqbalnay maadaama awalba aan muxuu ahaa dib u heshiisiintii guud ay ahayd inaan baxno oo doorashadii ka qayb galno oo Djibouti ka dhacisay marka odayaashii dhanka kalena dabcan way aadeen saan filayo waxay muxuu ahaa intaan aan babaxaynay oon xirxiranaynay oon soconay ay noo keeneen ay noola yimaadeen muxuu ahaa Sheekh Mukhtaar Roobo iyagoo odayaashii dhaqanka ay la socdaan ayuu noo yimid garab gaaban bay ahayd waqtigana aad buu u yar ma ciidan uu watay mise wuxuu idin yimid isagoo caadi ah oo keligiis odayaasha la socda ma ciidan ma wadan oo waxaa la socday odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo muxuu ahaa isagii anagu ehel noo ah baa la socday marka horena anaga inoo yimaadeen isagana intay dabcan meelaha ay ku ballansadeen bay u tageen marka waxay garteen in muxuu ahaa horey isku soo raacaan isagii oo hub ciidan wadan oo hub wadan oo gaari baraadaha ku socdo keligii intaas bay noo keeneen muxuu ahaa waan istaag baan isku aragnay adinkana waa hubaysnaydeen anaga waaba sharaacnay oo aan baxdaan ahayn ciidanna waa wadateen anaga ciidan badan ciidan fiican oo nagu filan oo magaalada markaas amnigeeda xataa ku filan haddii loogu talagalo in la difaaco ku filan baana la socday asagana waa ciidana ma wadan markaas iyada ah oo aan ka ahayn wax ilaaladiisa oo 3 iyo 4 wiil aan ka badnayn oo gaari baraadada la saaro laakiin odayaasha dhaqanka uu isku soo aaminay ayagaas ayuu muxuu ahaa yaa hor socday ayagaa noo keenay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in wax dagaala aysan idin dhex marin ninkaana annaga la hadlayno la xaalayno iyo waxa la socdo idinkana annaga idin la xaalayno oo idin amba bixinayno nabadii magaalada lagu baneeyo marka free baan qaadanay anagu waa ka tagnay marka waa isnacsadanay wixii dhacdadaasi ka dambeeyay waxaa soo xoogay khilaafkii u dhaxeeyay hogaanka Al-Shabaab iyo Roobo waxaana Al-Shabaab ay u arkayeen Roobo in tolkiisa uu ka sareysay qadiyadoodii sanadkii 2008 ayay dawladda Mareykanku waxay cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogtay rag uu ka mid ahaa Roobo taasoo ilaa ay hadda saaran aysan weli kala cadeyn sida ay u saameyn doonto xilkiisa iyo wasaaradda loo dhiibay
sidoo kale waxaa madaxiisa la duldhigay lacag $5 milyan oo dollarka Mareykanka ah inkastoo markii dambe sanadkii 2017 bishii June laga qaaday 5 milyan waxaa 2 bilood kadib xilligaasi uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda sanadkii 2018 wuxuu Robo bilaabay olole siyaasadeed oo uu ku doonayo hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed balse waxaa ka hor istaagay dawladdii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaana dhamaadkii 2018 la soo xiray Mukhtaar Robo iyadoo magaalada Muqdisho la keenay halkaas oo inta badan lagu hayay xabsi guri Matt Bryden oo ah la taliye dhinaca istiraatiijiyadda ee hay'adda Sahan muddo dheerna arrimaha Soomaaliya wax ka qoraya ayaan weydiiyay sida uu arko magacaabista Mukhtaar Robo. I think it's a very interesting appointment, especially as Minister of Religious Affairs, Endowments and Countering Violent Extremism, which really puts waxaan filayaa in ay tahay magacaabis aad u xiiso badan gaar ahaan wasiirka arrimaha diinta, awqaafta iyo la dagaalanka xagjirnimada taasoo runtii ka dhigaysa inuu safka hore kaga jiro la dagaalanka al-shabaab gaar ahaanna dhinaca fikirka waxayna ila tahay in tani ay tahay wax ay dhab ahaantii al-shabaab ka baqayaan sida ay horeyba u caddeeyeen in Robo ay ku naceen oo aysan rabin inuu xil dawladeed helo waxa ay hayaan fariin ka dhana dacayadahoodii hore waxayna si cad uga baqayaan in mansabkiisu uu ku dhaliyo taliyaasha kale ee sarsare ee al-shabaab inay u goostaan dawladda runtiina waa shakhsi aad u soo jiidasho badan oo ixtiraam leh marka waxay ila tahay intaasi ay tahay wax suuragal ah ayna malaha tahay sababta jagadaasi loogu magacaabay. He is indeed a very charismatic and respected figure. So I think that is a possibility and that is probably why he was nominated to that post. Mukhtaar Robo waxa uu weli saaran cunaqabateyn dhaqaale inkastoo laga qaaday 5 milyan ee la duldhigay waxaanay dad badan isweydiinayaan sida ay reer galbeedku uga jawaabi doonaan magacaabista Robo oo mar kamid ahaa hoggaanka al-shabaab waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyay Matt Bryden. When Mukhtaar Robo surrendered to the government, he had in fact been fighting al-Shabaab for 2 years. So he wasn't strictly speaking a defector. He was already an anti-Shabaab commander in the field. He then underwent a fairly rigorous process in 2017. markii Mukhtaar Robo uu isku soo dhiibay dawladda waxa uu xaqiiqdii la dagaalamayay al-shabaab muddo 2 sano ah marka si adag uguma uusan hadlin sida qof isu soo dhiibay waxa uu ka horeba ahaa taliye furunta kula dagaalamaya al-shabaab kadibna waxa uu maray barnaamij adag 2017 kaasi oo niisa ku samaysay baaris iyo xaqiijin waxa uu ahaa hanaan ay dhowr kamid ah saaxiibada caalamiga ah ku lug lahaayeen ama ugu yaraan ay ka warqabeen kadibna waxa uu noqday qof nooc ahaan loo arkiyay geesi noqdayna qof shacbiyad leh waxa jiray su'aalo aad u yar oo ku saabsan inuu wax naxariisa u qabo al-shabaab iyo in kale mana ahan markii ugu horeysay oo saraakiil sarsare oo al-shabaab ah ay ku biiraan dawladda waxa jira shakhsiyaad hore oo shabaab ah balse madaxweynaha Jubbaland ayaa kamid ah waxaan ku aragnay shakhsiyaad shabaab ka tirsanaan jiray oo niisa booliiska iyo militariga ka tirsan kuwaasi oo qaarkood si aad ah oo adag ay u shaqeeyeen marka uma malaynayo in tani ay tahay mid aan caadi ahayn waxa dhici karta inay tahay magacaabistii ugu sarreysay ee nin hore uga tirsanaa al-shabaab oo ilaa maanta la sameeyo dabcanna madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen ma jeclaanayo magacaabistan. The president of Jubaland is one of them. We have senior Shabab figures in NISA, the police force and the military, some of which have served with distinction. So I don't think this is particularly unusual. It just happens to be the highest profile appointment of a former Shabab member to date. muddadii uu xirnaa Mukhtaar Robo waxaa la sheegay inaan wax maxkamada la soo taagin isla markaana aysan jirin wax eeda ama dacwooyin oo loo haystay dawladda cusubna marka laga soo tagay inay wasiir ka dhigtay lama sabaynin wixii uu sanadahaasi u xirnaa General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriye taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ayaa sheegay in magacaabista Robo lagu qiimeyn doono wax qabadkiisa waa horta muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh in xil loo magacaabo waxa xiisaha la waxa weeye ururka oo ka tirsanaa iyo backgroundkiisa ayaa dadku su'aalo badan ka keenayaan iyo wadciga uu hadda ku jiray oo inuu si dadban u xirnaa waxaan isleeyahay magacaabida Mukhtaar Robo aadna uma xuma aadna uma wanaagsana waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado sida uu dhaqmo waxa laga dejinayo intaasoo culumaha waa joogto
si ay cilmi badan kana sumcad badan waxa loo magacaabo dagaal lagu jiro ama wax ka geysan karaa wax marka wuxuu la yimaado iyo tactical uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado ayaa amba aad u xumeyn doonta amba aad u wanaajin doonta laakiin hadda aadna u wanaagsan dhinaca al-shabaabna afhayeenka guud ee kooxdaasi sheekh cali maxamuud sheekh cali dheer ayaa fariin uu soo diray oo lagu baahiyey baraha warbaahinta ee al-shabaab waxa uu ku sheegay in Mukhtaar Robow weligoodba ay ku kala duwanaayeen arrimaha caqiidada marka laga soo tago saameynta magacaabista Robow ee al-shabaab bari uu ka tirsanaa ay ku yeelan karto dhinaca kale waxaa jira in maamulka hadda ka taliyo koonfur galbeed aysan isku wanaagsanayn ayna u arki karaan halis siyaasadeed oo maamulka soo food saartay Matt Bryden ayaa qaba intaasi ay tahay mid aan ku cusbayn siyaasadda Soomaalida. I don't expect his decision be welcomed by the Southwest State leadership because Robow was a candidate for the presidency in 2018 and clearly stood against anigu ma filayo in go'aankiisa uu soo dhaweyn doono hoggaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed waayo Robow waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi 2018 si cadna uga soo horjeeday madaxweynaha xilka haya marka waxa loo arkaa nin siyaasad ahaan ka soo horjeeda laakiin tani waa mid wax caadi ah ka ah siyaasadda Soomaaliya ee ah inay jirto xurguf u dhaxaysa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo xubnaha wakiilada ee maamul goboleedkaasi ka soo jeeda kuna matala heer federaal ayna ku loolamaan cidda ku sarreysa siyaasadda ama saameynta badan marka ma ahan markii ugu horeysay mana ahan gobolka kaliya ee wajahaya jahawareer noocan oo kale ah madaxweynaha Puntland ayaa ku qasbanaa inuu la loolamo senatarada qaar Puntland ka yimid madaxweynaha Jubbaland ayaa la xisaaltamaya ra'iisul wasaaraha oo ka soo jeeda Jubbaland haddaba madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu noqonayaa mid la qabsada inuu jiro wasiir miisaan leh oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo golo wasiiro with senators from Puntland the Jubbaland president contests with the prime minister from Jubbaland so the president of Southwest is just going to have to get used to the idea that there is a senior minister from Southwest state in the cabinet madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waxay labadaba ku celceliyeen in muhiimadda koobaad ay siinayaan dhinaca amniga iyo la dagaalanka al-shabaab waxaana muuqata inay rajo ka qabaan in magacaabista Robow ay gacan ka geysato dagaalkaasi dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa inaanu la xiriirno wasiirka magacaaban Mukhtaar Robow si aan wax uga weydiino magacaabistiisa iyo waxyaabaha uu soo kordhin karo balse noomaanay suuro gelin in aynu helno marka ugu horeysa oo ay noo suuro gasho ayaanu fakirkiisa idin soo gudbin doonaa dhegeystayaal dhinaca koonfur galbeed oo aynu la xiriirnay iyana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan mowqifkooda ku aadan magacaabista Mukhtaar Robow